نبي محمد وحو الله عليه الصلاة والسلام حديث صحيحها رسول كاوح حسين ولا كل من نبي إبراهيم هبين كيل ديلمية فرين بو الناس وفر نبي إبراهيم وحو مدي سلاني جارسي وحانادو sheegtaa arinta qola meesha jannada la yiraahdo marka ilaahay wawliyadiisa ku casuumayo tayyibatu turba adbatu almaa wa innaha qi'an qarzuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ciida jannadu waxa weeye mid wanaagsan oo udgoon biyaheedu way macaan yihiin waa meel isku siman oo baholo iyo buuro iyo turunturro toona lahayn waxa lagu beerayo barwaaqadeeda ay ku baxdaana waa dhikriga subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar qof waliba oran kara odayga iyo islaanta iyo mid mutacallima mid waliba wardiga iska kooban uu akhri kara isagoo boqolaal iyo kumayaala de wad beeraysaa un jannadii waxyaabaha jannada lagu beero waxa kamid ah istighfaarta astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah 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 ma dadkeenu waa khaldaan astaghfirullah waa qalad astaghfirullah saasa lagu dhawaaqaya sayyid istighfar nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam istighfaarta waxa hormuud oo inaad tiraahdo la ilaha illa allah la ilaha illa ant allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ذكرها قفك كل واقع قالين كهرها طول انت قالين كدنب جندو قاليا دو قالين كدنب كل واقعنا قالين كهرها جندو قاليا كل وقتك أو كل واقع جنو كهليا أو وحي جند اللي قهلي وبذكرها استكوابن قفك وحفظي كراه آية الكرسي النبي يقول الله عليه الصلاة والسلام قفك آخرية الصلاة والمركب آية الكرسي قفك آخرية لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت jannada inuu galo waxba ka hor joogo inuu dhinto waxa isku beegmayeen isagoo ku wardiyay oo salaad ka baxay isagoo naftu ka baxdo jannadu cala tuulu galaya lagu leeyahay bismillaah ilaadan baa ku jira shaydaankiina way ka eriyaysa waxa kamida waxyaabo nabigu xusay inoo sahlan baa kooban ee jannada lagu galayo ducadan suuqa marka uu galayo qofku inuu akhriyo لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وحلو قرأ يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام ألف حسنة كن وحسنة معناه ذو حوي كن لقول فتي هل مليون حسنة لو قرأ هل مليون أود بينا ولا قد عافية هل مليون أود درجنا والله ضلعية وحين وجد شدنا وبني له بيتا في الجنة كورنا شدنا ذا لوجسي بنايي صومات علين دي ميلاد سو دغayso guri goglan oo salaxan oo guriyaha ugu qaalisan ee ugu raaxo badan u sii diyaarsan yahay gurigaas hadii aad intaas ku wardida aad akhriyayso waxyaabaha cajiibka ah ee inoo sahlana jannada wadooyinkeeda waxa kamid ah su'aalu janna inay ilaahay barina jannada ama af carabi ku bari ama af soomaali ku bari luqadda taqaano ku bari ilaahay luqadaha dhan in isaga ay baray subhanahu wa ta'ala rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wa sallam waa xadiis saxiix albani silsiladiisa oo saxiix kaga dhigay haddii qofku uu 7 jeer yiraahdo ilaahay uu naartaan ka magan galay ilaahay uu naartaan ka magan galay carabi iyo Soomaali mid ku doonaya ku laha 7 jeerna yiraahdo ilaahay uu jannadan ku weydiistay naartiiba hadlays waxay leedahay ilaahay uu adoonka iga ka magan galay ka badbaadi iga badbaadiyo iga jooji Allah aqbalay ilaahay uu adoonka ka weydiistay halkan keen bay leedahay jannaduna ilaahayna subhanahu wa ta'ala isaga u fasaxay uu ku geynaya hay ku yeelaysaa toddoba jeer inaad ku celiso waxa kamid ah qowlu la ilaha illa allah bal shahaadadii suuqa yeelatay dad badan baa haystaa shahaadada in lagu islaamo la joojiyo intoo lagu islaamo islaamka lagu soo galo furaheedii ay tahay in halka la iskaga xidho shahaadadu waa wardiga ugu qaalisan ba wardiga aad baalal ku yeelanayso ilaahay xaqiisa u duulaysa waa shahaadada marka intaad kare kartaad badinaysa la ilaha illa allah 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 النبي عليه الصلاة والسلام وحاول حديث صحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قفك مركي نفسه كسيب بحيثه لا إله إلا الله انت كل واقع جند وقلي يا النبي عليه الصلاة والسلام زاد لا دد بها بونتي انت ندد كسيد من يحيي كلها ولا مثال هبل كل هاي هبل محاد سينيسا aniga maxaad siinaysaa yeena shahadada seejin oo aynan ka xaraajin
mid baaba laga yaabaa inuu ku xanaaqo idhahdo maanaa dhaxalkayga usoo dhigatay sidaa ku ashahaado seego marka waxaa muhiima laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah in la badiyo salaada xusay nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka ku dadaalaya salaada ee aan xaqiraynin dayacaynin ilaahay agtiisa cahdi buu dhigtay iyo ballan inuu jannada geliyo hadduu xataa gef ku dhacaba gef baa ha ku dhacee ilaahay agtiisa ballan buu dhigtay qofka tukanaya inuu jannada geliyo sidoo kale jannada inuu ku gelayaa buu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ku dadaalo 12 ragcadood ee raatibada la yidhaahdo salaadaha raaca 2 ragcadood oo ka horeeya subaxa 2 ragcadood oo duhurka ka horeeya 2 ragcadood oo ka dam ama 4 ragcadood duhurka ka horeeya way jiraan labaduba iyo 2 duhur ka dambeeya 2 maghrib ka dambeeya 2 cishaa ka dambeeya marka duhurkii baa wuxuu leeyahay maxay 6 buu leeyahay iyo salaadaha kale oo 6 casarkii markaa kuma darin nabigu calayhi salaatu wasalaam marka 12 ragcadood hadduu qof ku dadaalo jannadu galayaa buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa tobnaad oo waxyaabaha jannada lagu galayaa man khutima lahu bisiyaami yawmin dakhala aljanna xadiisna saxiix xudayfa warinayo qofka isagoo sooman khaatumadiisa soomo u dambeeyo maalinka ama sooman ama maalmaha u dambeeyay soomayay soonku fadligu leeyahay jannadu ku galaya infaaqa isaguna lamida oo ka 11 wax bixinta iyo shayga deeqda nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii magaalada madiina waxa ku yaalay ceelaad u biyo badan oo bulshadu ay u baahnayd Roma la oranay biiro Roma marka ninkii lahaa uu nabigu ku yiri il jannada maad ku iibsano umada maadsiin ee wax kale aan haynin buuriyo inta waan u baahana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardaahu ayaa ka iibiyo ninkii lacagtiisii siiyay lacag markaa qaali ahayd ayuu ka bixiyay 35 dirham oo qiimo waqtiga lahaa laakiin nabigu afka u soo dhuubayo wuxuu yiri ceelkan isaga ah haddii aan bixiyo ma ku helayaa ishii aad sheegaysay ninkii uu ku heli lahaa ila waadiga yiri haddaad ceelkan bixiso isha jannadaad ku helaysa haa waad ku helaysaa buu daba ilaahay daraadii baan u waqfay marka in dadkan haraaday ee xiiqee duruuftu ahaysa ceelal biyo loo qodo oo la siiyo wixii la heli karayo iyo sadaqada sheekhuba markii dhaweyd idin sheegayay waxaad u qiimo badan weyn noocyadeeda kala duwan biyahana u sii fadli badan waxa 12aad oo wadooyinka jannada kamid ah alxirsu ala birri alwalidayn labada waalid samafalkooda aad loogu dadaalo Aisha waxay tiraahday baan ku riyooday inaan jannada galay oo quraan la akhriyo baan maqlay markaas aan waayo qofka quraanka akhriyaya Haritha ibn Nu'man ninkii la oran jiray baa jannada ku jiro quraanka akhriyay baa li nabigaan u sheegay markaas uu kadhalika albirru samafalka caynkaas ninkaas in waalidkiisii u samafali jiray buu ahaado samafalkaas uu ku helay aljannatu tahta aqdam al-ummahat jannadu waxay ku jirtaa hooyada agteeda hoosteeda marka haddaad hooyada garka qabatood maslaxatood u samafasho way kaaga dhaqaaqay haddii kale lugtii aw sabiray ka saari